mowduuca aan maanta ka hadli doono wuxuu ku saabsan yahay vitamin C. Vitamin C-ga qaybo badan oo qudaarta soo go'do beeraha noogu soo go'do ayaa laga helaa. Waxa ugu horeeya liima oranjada, waxa kaloo ku xigo liimada qaybaheeda kala duwan. dabcan waxaa kaloo laga helaa bagalka oo loo yaqaan broccoli. qudaarta qaybaheeda badan waa u badan yahay in vitamin C laga helo. vitamin C waxyaabo badan ayuu jirka bani'aadamka faa'iido u leeyahay. waxa ugu horeeyay inuu ka qayb qaato hab difaaceedka jirka bani'aadamka uu leeyahay. wuxuu ku ilaaliyaa inaysan jirka aysan ku badan infekshanada qaar khaasatan bakteeriyada, fungiga iyo viruska. dabcan waxa kaloo aad iyo aad uga hortagaa in parasite infections ay jirka ka dhashaan. vitamin C wuxuu ka mid yahay fitamiinada qaab ahaan marka loo fiiriyo biochemistry water soluble ah. dhinacan waxaa loo yaqaanaa asaga biological ahaan ascorbic acid. haddaba vitamin C muxuu qabtaa jirka bani'aadamka muxuu qabtaa? waxa ugu horeeya oo dabcan uu qabto waa antioxidant. waxa jirka dhibayo ama infection ha noqoto, waxyaabo kale oo jirka saameyn ku noqdo ha noqoto, dhammaantood ayuu wuxuu isku dayaa inuu ka hortago, inuu xakameeyo inaysan jirka saameyn ku noqonin. waxa kale oo ka mid ah shaqooyinka uu qabto inuu soo saaro borotiinka loo yaqaano collagen synthesis inuu ka qayb qaato. collagen synthesis jirka bani'aadamka waxyaabo badan ayuu u qabtaa. waxyaabaha ugu muhiimsan uu qabto waxaa ka mid ah inuu ka qayb qaato habka maqaarka dabcan uu samaysan yahay, inuu dabcan maqaarka protection badan inuu noqdo, wax soo saarka qaybaha badan oo maqaarka la soo saaray inuu door xasaasi ah ku leeyahay collagenka. vitamin C wuxuu door xasaasi oo weyn ka qayb qaataa nerve cells unugyada neerfayaasha. dabcan wuxuu ka qayb qaataa inuu soo saaro maadada loo yaqaano catecholamine oo ah inaan ognahay in ayadana door weyn ay ku leedahay marka ay dabcan gudbayaan acetylcholineska, norepinephrine-ka, adrenaline-ka, dhammaantooda wada ah signals xagga nerve cells-ka. vitamin C wuxuu aad iyo aad door weyn ku leeyahay habshaqeynta maqaarka. wuxuu kor u qaadaa hab difaaceedka maqaarka. skin dermiska qaybahooda kala duwan ayuu ka qayb qaataa. sidoo kale wuxuu kaloo ilaaliyaa haddii nabro ee maqaarka ka soo baxaan in sida ugu dhaqsiyaha badan aysan nabrahaas daahin. wuxuu ka caawiyaa marka in antibody badan uu soo daayo si aysan nabrahaas infectionka jirka qaybihiisa kale u saameyn. vitamin C wuxuu door weyn oo xasaasi ah ku leeyahay marka la soo saarayo white blood cellska, birikaarsarada cellska oo loo yaqaano unugyada cadcad ee ka qayb qaato hab difaaceedka jirka, khaasatan neutrophilska, monocyteska iyo lymphocyteska. dhammaan white blood cellska vitamin C wuxuu u sameeyaa inay bataan, inay qaangaarkooda uu noqdo kuwo aad u fiican, in ay wax iska difaaci karaan haddii infection ay imaadaan. dabcan vitamin C wuxuu hoos u dhigaa infectionada soo laabto ee neefmareenada ku dhaco, khaasatan pneumonia iyo bronchitis. wuxuu kaloo aad u ka qayb qaataa inuu yareeyo cawaaqibka ka dhalanayo tuberculosis TB-shada. sidoo kale wuxuu kaloo aad iyo aad ugu leeyahay candidiaska, nabraha cadcad ee afka ka soo baxay oral thrush. sidoo kale wuxuu kaloo aad u yareeyaa nabraha ka soo baxo xagga hoose genital organska. vitamin C marka uu yaraado calaamado badan ayaa qofka lagu arkaa. waxaa ugu horeeya waxaa loo yaqaano scurvy, in ciridkiisa iyo ilkaha ay noqdaan kuwo ay ku dhacaan atrophy ama ay baaba'aan ay noqdaan ilkihii waxyar, in lagu arkay ilkihii mar walba inay dhiigayaan ciridka qaybihiisa. sidoo kale vitamin C markuu yaraado waxyaabaha lagu garan karo waxaa ka mid ah in skinka ay ka soo baxayaan nabro badan oo rash ah. sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa in vitamin C marka uu yaraado jirka bani'aadamka in infekshanno badan xagga feeraha lagu arko, in infekshanno badan xagga maqaarka lagu arko, afka sidoo kale nabro badan inay ka soo baxaan. dhammaan qaybahaas aan ka soo hadalna door weyn ayuu ku leeyahay in qofka vitamin C inuu helo. aad iyo aad ayay difaaciisa kor ugu qaadaysaa. waxaa la rabaa qof walba marka uu isticmaalayo raashinkiisa inuu si gaara uu aad ugu badsado vitamin C. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa dhageysiga aad dhageysateen barnaamijyaadka aan soo geliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.